hadda Cawaale maanta waa 14 bisha tahay waxa aan ka noqonay ururkii jabhadda Cawaale ee aan ku dhawaaqnay sabab awgood iyada oo nin tolla aan dhaari u bixin waxa aqoonyahan iyo saraakiil iyo madax ay tolkaya ahaa ay nagala qabsadeen taladaasi waxaan yeeli lahayn iyo waxaan qabsan lahayn annagoo ugu tala galay dhimasho haddana waxa weyn nin tolla dhaari uma baxdo waxaan ka udur daaranaa Cawaale waxa weyn nin tol lihi guul ma gaaro waa laga qabsan karaa mana dhaaran karo aan noqonaysaa inaan Cawaale ka noqonay maanta oo bishu tahay 14 jabhadda naga aqbashay iyaga oo in ka badan 3 bilood buuraha ku jiray in si dhib yar ay habeenka caaw ka guuraan saldhigyadoodii naga aqbashay iyagana mahad baanu naqaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa General Cabdirasaaq Saciid Bulaale oo janankii u xilsaaraa inuu tallaabo ka qaado ciidamada ka samaysmay buuraha oo waxa weeyaan noo dul qaatay isaga iyo madaxweynuhuba intii aan hawsha dhameeynay mar walba waxa weeyaan si joogto ah wixii aanu la tagno codsiyaa warbal dib noogu dhiga yaani rasaasi dhicin yaan ciidamadu isku dhicin waxa weeyaan dulqaadka iyo raganimada uu sameeyay aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirkeena wasiir Saachin Professor Salebaan Axmed Guuleed Suldaan Salebaan oo jabhaddu ay shalay naga codsadeen annagu horta bariyahan waxaanu ahayn rag waaweyn oo Xasan Xuseen Professor Qaasim dhalinyarada kale ee waxa weeyaan xildhibaanadii ciidamada jabhadda magaca Cawaale la baxday ee naga aqbashay ergadii odayaasha ergadii jananimo ergadii wasiirka ergadayadii isku duubnayda Professor Salebaan naga aqbashay suldaankaba aad baan ugu mahadnaqayaa mahadnaqa kadib waxaan u sheegayaa anigana waxaan runtii maanta aad ugu faraxsanahay anigoo waajibkaygu ahaa colaad iyo nabad inaan mid ku soo afjarno arinta waliba colaad inaan ku soo afjarno oo ahayd aan uga jeedo jamhad meel ku ururtay dawladnimo eegato anigoo abaanduliga guud ee ciidamada qaranka inaan arintaas soo afjaro soona tirtiro guul wadareedanu wada joogno arina way dhacdaa khalad uu dhacaa laakiin taban ilbaxnimada waa in la saxaa waana ku saxantay halkan maanta waa u ducaynaynaa intii nimankii jabhadda sabaabulay markii aynu soo hor fadhiisanayna wixii gareenu la tagnay ergadina naga aqbalay inay shuruucda dalkana ku dhaqmaana ku ballan qaaday annagu aanu una joognay guuritaankoogii wixii tabasho ah oo runtii in badan macquul ahayd oo waxyaabo de Soomaaliland kulli inaga dhiman oo meel walba tabasho way jirtaa laakiin si gaar ah qoladan ee halkan ay ahayd deegaankani waxa tiina waan ka qoray arin intii muddadii dhaweydba culays lagu ahaa gobolkana ku ahayd reer ahaan inagu ahayd oo walwal badan ka qabnay waxa weeyaan maanta alxamdulillah inay soo xidhantay ay jabhadii naga aqbashay ay ballan ay ku qaadeen inay guurayaan imika aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin waxaan moogtahay halkan ka sheegaya in maadaama aanu nahay madaxdii meesha hawsha gashay wixii tabasho ah anaga guudka saaranay umuuraha Allah inoo sahlo abshir sanaha inoo waafaji anu xagga mahadnaqaya aad uma badiyo waa la igu yaqaan wixii aan u jeedo baan ka hadlaa waxaan dawladda waan u mahadnaqayaayo jabhadda way u dul qaadatay in badan dawladda taasaan ugu mahadnaqaya inamada jabhaddana waan u mahadnaqayaayo inta ay meesha fadhiyeen ficilkii jabhadi lahaan jirtay lama iman wadama ay joogsan ruux dumar ma ay hatidin wax kale iska daayo inamadana taasaan horta ugu mahadnaqaya adeerayaal waxaan leeyahay anigu inta iyo ducaan idinkaga tagayaa arrinkiina waa sidaa uu dhamaaday si fiican u fuliya meesha dawladda soo maraysa bari iyo wixii lamida waa la soo marayaa waajib